السلام عليكم daawadayaal kulanti wanaagsan wararka ugu waaweyn ee aad barnaamijkan ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya wararkii ugu dambeeyay dagaal culus oo maanta ka dhacay degmada Daynunay ee gobolka Bay dagaalkaas oo u dhaxeeyay ciidamadii dawladda federaalka ahaa iyo sidoo kale kuwii badbaadada koonfur galbeed ee ku sii jeeday magaalada Baydhabo haddaba daawadayaal waxaynu barnaamijka idinkugu soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaq culus oo ka socda degmada Daynunay sidoo kale daawadayaal barnaamijka waxaynu idinkugu soo gudbinaynaa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdilcasiis Laftagareen oo furimaha hore ee dagaalka lagu arkay isagoo wata jaakada ama dharka ciidanka maxuu Laftagareen ka doonay furinta hore ee dagaalka xilli la leeyahay isagu waxa macquul ah inuu dawladda federaalka ee Soomaaliya isku dhiibo waa sida warbaahinta qaar ay qoreen wararkii ugu dambeeyay xaaladda ka taagan koonfur galbeed iyo afayeenkii maamulka madaxweyne Laftagareen oo afka furtay isla markaana ugu baaqay beesha caalamka inay soo farageliso xaaladda cakiran ee ka taagan Soomaaliya ayaan daawadayaal barnaamijkan idinkugu soo gudbinaynaa wararkaas ayaa ugu waaweyn qodobada barnaamijkeena maanta balse saaxiibayaal fikirkeena iyo aragtidiina ku aadan dawladda federaalka ee Soomaaliya ma ka guul keeni doontaa dagaalka ay Laftagareen la gashay aragtiyadaada faallada inoogu reeb soo dhawaada saaxiibayaal wararka soo baxay waxay sheegayaan in dagaal culus uu ka dhacay degmada Daynunay ee gobolka Bay dagaalkan ayaa u dhaxeeyay ciidamada dawladda federaalka ah iyo kuwa badbaadada koonfur galbeed oo ujeedkoodu ahaa inay Baydhabo tagaan isla markaana maamulka hadda Baydhabo jooga ay halkaasi markaa ka gacan xayuubiyaan wararku waxay sheegayaan in dagaal culus uu halkaasi ka dhacay iyadoo uu jiro khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda Soomaaliya ayaana baahisay warbixin ku saabsan in la dilay 21 xubin oo ka tirsanaa raggii al-shabaab ee weerarka ku qaaday ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo ciidanka koonfur galbeed ee badbaadada koonfur galbeed la magac baxay sidoo kale dawladda Soomaaliya waxay sheegtay inay dhaawacday in ka badan 10 qof oo ka tirsanaa nimankii la dagaalamay ciidanka dhammaan dhaqdhaqaaqyadan iyo dagaalkan waxay ku soo aadayaan xilli xiisada culus ee u dhaxaysa dawladda federaalka ah iyo maamulka koonfur galbeed ay imika marayso mid kamid ah meelihii ugu cuslaa xaaladda u dhaxaysa koonfur galbeed iyo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaana markasta waxay noqon kartaa mid uu dagaal ka dhaco wararka sidoo kale soo baxay waxay sheegayaan in madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdilcasiis Laftagareen uu maanta tagay furimaha hore ee dagaalka isaga oo ciidamada ku dhiirigelinaya inay isdifaacaan daqiiqada ka hor waxa isaguna shir jiraa'id qabtay afayeenka maamulka koonfur galbeed isagoo waliba sheegay dagaalkan inuu yahay mid raggii koonfur galbeed ka soo jeeday ee siyaasiyiinta ahaa iyo askartii loo soo dhiibay hub iyaga oo la yiri la dagaalama dadkeena afayeenka maamulka koonfur galbeed oo shir jiraa'id qabtay hadalkiisu waxa uu ahaa sida tan bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasalaatu wassalaam calaa rasuulillaah maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 29 bisha 3aad 2026 waxaanu halkan ku qabanaynaa war-saxaafadeed guud oo aan rabno xaaladda guud ee dawladda koonfur galbeed Soomaaliya inaan dadka Soomaaliyeed ee reer koonfur galbeed Soomaaliya aan u soo gudbino dawladda koonfur galbeed Soomaaliya waxay u mahadnaqaysaa guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer koonfur galbeed oo garab taagnaa maalmihii adkaa ee la soo maray walaalayaal dadka Soomaaliyeed waxay diideen in dawladda Soomaaliyeed ee federaalka ay duulaan qaawan ku qaado dad kamid ah ummadda Soomaaliyeed dawlad goboleed kamid ah ummadda Soomaaliyeed oo dastuurku ogol yahay inay qabsadaan kuna dhaqmaan shuruucda ayagu ay degsadeen ee reer koonfur galbeed Soomaaliya dawladda koonfur galbeed waxay idan leedahay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogtaan ba kuwii nala soo dhafray kuwii noo tacsiyeynayay dibka naloo geysanayay kuwii aragtida qurxoonna siinayay kuwa talooyinkana siinayay dhammaantiin reer koonfur galbeed iyo ummadda Soomaaliyeed waxaan idin leenahay waa mahadsantihiin waxaan halkan ku soo gaaray taageeradiina waxaan halkan ku soo gaaray garab istaagiina waxaan dawlad ku dhisanay tusaalooyinkii aadna siinayseen markaad aragteen gardarada qaawan ee lagu soo qaaday shacbiga reer koonfur galbeed jiritaankooda dawladnimo iyo midnimadoodaba sidoo kale dawladda koonfur galbeed Soomaaliya waxay rabtaa inay dadka Soomaaliyeed u sheegto tusaalooyinkii la soo dhaafay inay ogaadaan oo ah ciidamada qarabka sida ee Soomaaliyeed ee loo aasaasay guud ahaanba inay difaacaan dalkeena qarannimadiisa gaar ahaan la dagaalanka ururka al-shabaab waxaan ogsoonahay in dawlad goboleedka Jubbaland horay loogu adeegsaday
duulaan lagu burburinayay jiritaankooda reer Jubbaland iyo dowladoodaba iyadoo loo adeegsanayo inamadii Soomaaliyeed loo carbiyay inay cadawga ka difaacaan dalkan qoryahana loogu dhiibay reer Jubbaland inay isku laayaan waxa ka dhashay halka khasaaro weyn oo ilaa haatanba tabashadeedu ay taagan tahay hooyooyin badan ay ku gablameen dagaalkii ka dhacay Jubbaland ee dowladda federaalka Soomaaliyeed ku qaaday taasoo kale maanta ciidamadii qarabka sida ee Soomaaliyeed ayaa naloo adeegsaday iyagoo noocyo kala duwan leh gaar ahaanba waxa si gooni ah loo soo xulay shakhsiyaadkii ama ciidamada dadkii ka dhashay koonfur galbeed Soomaaliya ciidamada qaranka ku jiray ayaa inta si gooni ah loo soo xulay si gooni ah loo soo bixiyay la yiri waa inaad deegaanadiina tagtaan la dagaalantaan dadkiina dowladnimadiina aad burburisaan aad baan uga xunnahay in ciidamadii qaranka iyaga laftooda la kala furfuro qoys iyo jilib loo kala furfuro iyo dowlad goboleedba dabadeetana dadkiina soo xasuuqa la yiraahdo waxaan u baaqaynaa ciidamada qarabka sida ee Soomaaliyeed haday tahay kuwa sida la sheegayba ka soo jeeda koonfur galbeed ee ciidamada kala duwan ku jira iyo haday tahay kuwa kale Soomaaliyeedba walaalayaal waxa la isku haystay ma ahayn duulaan qoriye waxay ahayd doorasho reer koonfur galbeed Soomaaliyana iyagoo xiganaya dastuurkooda jiritaankooda iyo midnimadooda waxay qabsadeen doorasho waxa la idinku soo khalday waxay ahayd doorashada reer koonfur galbeed qabanayaan inta qabsanayaan inta aanay qabanin inaad ka hortagtaan oo dowladnimadii koonfur galbeed ala dagaalantaan waxaan idin leenahay walaalayaal haday aragtidu sida ahayd waa laga soo gudbay reer koonfur galbeed doorashadooda waa qabsadeen wixii siyaasad ahna waxa ka wada hadli doona cid ay khusayso ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ayagu ma khusayso inay qaataan amar khaldan ee walaalayaal waxaan leenahay kuwa laga soo diray Muqdisho laga soo aruuriyay Waajid laga soo aruuriyay Xudur sidoo kalena meelo kala duwan waxaan leenahay walaalayaal hadaa doorasho la yiri ka hortaga dadka reer koonfur galbeed iyo madaxdooda iyaynan doorasho qabsanin doorashadii shalay tay dhacday 28kii hadii ujeedku ahaa doorasho waxaan rabnaa inaad qoryaha dhigtaan oo aad diidaan amaradaas khaldan waxaan uga xunnahay in wiilasheeni la khalday buruxakaba iyo daynuunay inta u dhaxayso ay cadawgii al-shabaab dhibaato badan ku hayaan qaarkoodna ay dhinteen oo ognahay qaraxyana loo dhigay aad baan uga xunnahay wixii dhacay walaalayaal waxaan leenahay dalkan aad leediin dal kale ma leeyihiin doorashadii mar haday dhacday waa inaad qoryaha dhigtaan oo aad dadkiina iyo umadiina aad nabadda kala shaqaysaan waxaan si gaar ah la hadlayaa dadka ka soo jeeda koonfur galbeed oo ku jira ciidamada kala duwan oo la yiri baxa qoryaha qaata hooyada soo dil walaasha soo dil abtiga iyo adeerkaaba soo dil war way idinka khaldan tahay dalku waa federaal hadaa tahay qaran iyo hadaa tahay dowlad goboleedba dalkanaad leedihiin Puntland dadkeeda iska leh Jubbaland dadkeeda iska leh Galmudug iyo Hirshabeelle sidoo kale banaadir umad kalaaba sheegatay dhiga qoryaha dawladdu waxay idinku baaqaysaa inaad u timaadaan dawladdiina inaad u timaadaan shacabkiina inaad qoryaha dhigtaan ammaanka aad furteen xirtaan af buuxay idinku soo dhaweynaysaa dawladda koonfur galbeed Soomaaliya sidoo kale walaalayaal waxaan si guud ugu baaqaynaa dadka reer koonfur galbeed meel kastoy joogaanba hiiladiina waan aragnay dawladdu waxay idinku baaqaysaa waxay fidin doontaa gobol baaqa oo nabadeed ay isugu imaanayaan dadka reer koonfur galbeed Soomaaliya dawladnimada maanta aan haysanno sidii hore loogu sii wadi lahaa waxyaabaha yaryar oo dhaxdeena ahna aan isaga xalin lahayn waxa jirto eray maaya oo oranayo wal koraad hoob kooyaan walasa wallaabe walasa waliyo tarayaan maleh wal koraad la iska haysada jiritaankiin dawladnimadin ummadeedu wala la siin kala dagaalamay dadka reer koonfur galbeed dhamaantiyo walillaha baroortu orgiga ka weyn hadii wala la iska haysidii doorasho hayti reer koonfur galbeed qobsadeen doorashadiyo madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareenga shalay la dooradii ay la san khaladnay dalkale milihiidin wala la diidnay jiritaankiin ahaayeen midnimada ahayti in isin dadnaga taano dadka Soomaaliyeed asaagiin eebal suruntaan talada dalka walka walataan waana talidaan la siin diidnay mar lamaad in marsadahad walisan lana wala lenjeedi Cabdicasiis mahayna wala lenjeedi dawladnimada koonfur galbeed mahayna
ولا لنجدي ولا هاي نجري تانكين أمدد يونيتي إني إسين دتك كدنبويتن يحيتي ولا له صاحب السياسيين تا هيركم فرق البيت وبوراك بكسوم ولا ليال إيه ده أنكو حنا إني ونجيك أرجنا سفير قروة ده إني ونأرجنا وزير قروة ده إني ونأرجنا حلبان قروة ده أو أغلق إياه نيتفكرك إياه كشجع إياه الله هينا الله الريوريا قريدة قاعدة بهدت كين هباب إياه بهدت كين هدلا بهد دولة النمدي إسين شرفتها كوالد تدب إمبربورية ورآنا بيلوشن ولا إسين شلي شرفتن إكرامدن كوالد تان هو بإسين جيك الدبان كنجا تانو بربوريدان بريء أنت كقودسان أنت كدريرسان ورسين كهلاوتي تركم فرق البيت دور شدي وبصدق مدحوين عبد العزيز الله دور دي شلي أسيسين هيلي بدي تولكين سنديري بدي تولكين سنديدي والترن إنيسن والبان ترانا يوجادينو تولكين سديدين مدحوينه ولي الري ورحان دلك بهان شجعنا تنهوب والكوبادان تنكران والكوبادان حاشا لله سيدي لسين كمالي من كلسن الريركم فرق البيت سوماليا تارك دو ولا قرد دونتا يا بس أبتقول دونتا دالكن دد بدن الدولة إنما كست الله بالله إني مجحابيان إسكديان أسين تارك هو أسين قرنتاي دالكن أني للتين ولا دي أنا دولة اللتين دولة إنكوي وهذا هذا الدولة ديارانته ملك استول الرجوب مرلا ما دي مرصد هذا تكرر بينه إذا تكرر كونفور قلبي ولا لنا دجية قلبي دين عندك سنتين بربوغان ده عندك سنتين حان ورحمة الشيل كأه دولة اللتين وان كستو الدولة دين سين ديرته كاسا ولي سيغنا غلي هرمر يبرواغا waxa kaloon aad uga xunnahay oo aan sheegaynaa 1988 bay ahayd markii magaalada Hargeysa inta laga kiciyo garoonkeeda lagu baabi'iyay dadkii Soomaaliyeed ee markaa joogay jiritaankooda lagu baabi'iyay reer Hargeysana lagu baabi'iyay walaalaha iyo reer Somaliland waxaan goob joog u nahay maanta oo ay sanadka uu yahay 2026 dawladda Soomaaliyeed inay u adeegsato diyaaradihii qaranka ee loogu talagalay inay dalkan ka difaacaan cadawga gudaha iyo kan banaankaba waxaan arkaynaa in loo adeegsaday dadka reer koonfur galbeed Soomaaliya lana rabo in lagu gumaado lagana kiciyo burxakaba iyo balidoogle lana rabo in dadka reer Soomaaliya reer koonfur galbeed lagu duqeeyo walaalayaal waa ayaan daro weyn diyaaradihii qaranka u lahaa in dib inta loo soo kiciyo lagu abaabulo dadka reer koonfur galbeed ciidamo lagu daabulo madaafiic lagu soo raro la yiraahdo ku daqeeya magaalada Baydhabo iyo magaalooyinka koonfur galbeed Soomaaliya dadka Soomaaliyeed waa inay taariikhda wax ka bartaan 88kii wax xasuusanayaan reer Somaliland annaguna haddaan nahay reer koonfur galbeed waxaan xasuusanaynaa wixii maalmahan dawladda federaalku ay ka sameeynaysay koonfur galbeed oo ahaa in ciidamadii qaranka ay soo kiciso oo ay rabto inay ku baabi'iso shacbiga iyo dawladda koonfur galbeed Soomaaliya sidoo kale dawladda koonfur galbeed Soomaaliya waxay si adag uga digaysaa una sheegaysaa walaalaha iyo dawladda Turkiga in la isticmaalayo droonkii aad ku caawiseen dadka Soomaaliyeed oo ah inay si toos ah oo la dagaalamaan argagixisada al-shabaab iyo Daesh waxaan arkaynaa maanta inay dul taagan yihiin ilaa 200 oo diyaaradood oo bayrakdaar ah iyo kuwa lamida inay dul heehaabayaan hawada koonfur galbeed Soomaaliya si la rabo in lagu baabi'iyo dadka reer koonfur galbeed dawladda koonfur galbeed iyo shacbigeedu waxay leeyihiin walaalaha iyo Turkiga arintaas iyaysan boog idin kugu noqonin waxaad u siiseen hubkaas iyo diyaaradahaas iyo dabaabaadkan haddaba la rabo in dadka lagu laayo waxay ahayd in dadka Soomaaliyeed ay shabaab kala dagaalamaan laakiin ma ahayn in dib loogu soo laabto shacbiga reer koonfur galbeed Soomaaliya mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsantiin walaalayaal meel kastoo joogtaanba guuli gobonnimo idin dhaafayna koonfur galbeed ha guulaysato dadka reer koonfur galbeed meel walba ay joogaan waxaan leenahay guulaysta walaalayaal dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo aad u weyn ayaa ka taagan magaalada Baydhabo iyadoo sidoo kale dawladda federaalka ee Soomaaliya ay meenka ka cuskatay doorashadii shalay ka dhacday magaalada Baydhabo ee lagu doortay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdilcasiis Laftagelin doorashadaas oo ahayd mid hadalhayn xoogan dhalisay ayaa ku dhacday muddo 3 saacadood gudahood ah iyadoo la doortay la dhaariyay xildhibaanadii baarlamaanka gudoonkii baarlamaanka madaxweynihii iyo sidoo kale dhammaan xubnihii maamulka oo si degdeg ah markaa 3 saacadood gudahood la isku daba xijiyay dhammaan doorashooyinka haddaba daawadayaal barnaamijkeennii wararka intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa saaxiibayaal
wararkan waxyaabaha kale ee ku soo kordha wararkeena iyo barnaamijyadeena kale ee soo socda ayaad ku daawan doontaan insha Allah